الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى بمهدله إنه النبي عافمات قبنا يسوق كاني ما أنت مدشن وهرين وأنا ما أدعي بهذا ما المال أكاديمي وكل كي أفراد وحريرة أكد علينا وضعين السمايان بندق عروض بوجاكت علسكا هذا كواحد مقشام بوك فير أما بندق بوجاكته وقوة عصب لغو فرائي قوة لصو دابعي أما متبعدي كلا كان كاتشوغان وعد قارئ قبته لكن هل كان واحد سمايان هل أبور قارئ وبوجاك لصو أخري وقفسو يبسدي in dib loo iibiyo markuu qofkii akhriyay siday dadkii inta in leego kale ay u gaadhaan halabuurkaas ay ku guuleysteen iyagoo aan cidina ka caawinayn markii afraad ay soo bandhigaan waxaan kale ugu mahad celinaynaa in 12 oo buug wax ku siman la keenay 12kii bisha maalintii la bilaabay isla markaana saddexda maalmood gudahood la iibsaday wax ku siman 7 oo buug taasi waxa ay sheegaysaa fursadda ay abuureen waana ugu mahad celinaynaa in 70% buugtii ay keeneen ay dadkii gaadheen oo la iibsaday inta kalena insha Allah u gaari doonto marka labaad kale waxyaabaha reereentana gelinaya ee sababay inagu inaanu caawino iyadoo kalkii labaad xilka hayno labada kalbaanu caawinaya waxa weeye in ay burca leedahay da'yar iyo dhalinyaro iyagu iskood wuxuu qaban karaa abaabuli karaa maamuli kara madasha iyadoo aan wajiyo caan ah oo ama miidiyaha laga yaqaan ama magaalooyinka laga yaqaano ayna hawsha gacanta ku haynin 20 jiradaas intay maamulaan ay soo bandhigaan isla markaana 12 oo buug intay keenaan 7 oo buug la qaatay waxa ay sheegaysaa tayada dhalinyarada burcee magaaladu ay leeyihiin inagoo inay buugga bandhigta buugta ka dhacda gobolada kale waxa ku baxa iyo waxa isugu yimaada iyo xaysiiska ka dhaca iyo inta jeer dadka la isu keeno aad yaabayso haddana aan buugta mid la mida aan lagu iibsan intaan xog ka hayo maadmaatintii baad ku leenahay waxayna cadeynaysaa in 40 jirada gobolada kale iyo 20 jirka reer Burco ay isku karti yihiin waadii mahad celinayna mar labaad iyo mar saddexaad maalmaal oo ururada ku ugu taabudsan gobolka ka jira oo isugu jira inay sameeyaan doodo cilmiyeed wacyigelin inay qabtaan maktabad inay leeyihiin laga faa'iido taasoo ay ka dhaliyaan halabuurka inay buugaagta celiska dadka gaarsiiyaan iyo inay cilmi baaris sameeyaan buugaagtoodii ay soo saareen ay soo bandhigaan marka labaad waxa aan u yaragelayaa mowduuca uu ku saabsan yahay ama qodobka sanadka oo ah nabadgelyo maadaama xaalado badan dalkeena ka jiraan kuwa siyaasadeed ka jiraan kuwa colaadeed ka jiraan kuwa beeleed ka jiraan waxay taasi sheegaysaa in jiilka burca jooga ee wax akhriya goobaha aqoonta jooga iyo kuwa ururada abaabulani ay ku baraarugsan yihiin xaaladda uu ku sugan yahay wadankoodu isla markaana ay mowduuca u gaar yeelaan sanadka in laga hadlo nabadgelyada taasina ay sheegayso in jiilka cusubi ay gacmaha ku hayaan nabadda maadaama ay qalbiga ku hayaan waadi ka mahad celinayna mowduuca ina qaadateen noocyada de nabadda waa nabad qofeed iyo nabad bulsheed iyo nabad qaran nabadda qofeed waxay u baahan tahay inuu qofku nabadgelyo jidheed haysto iyo inuu nabadgelyo deegaan haysto iyo inuu nabadgelyo maskaxeed haysto nabadda bulsheedna waxay u baahan tahay inay horta mid nololeed haystaan bulshadaasi nabadda qarameedna waxay u baahan tahay in de mid xorriyadeed aad haysato oo mid dhaqdhaqaaq haysato oo mid horumarineed aad haysato hadda istaa ganacsi samee inaad de kalsooni ku haysato amniga inaad dhaqdhaqaaq samayn karayso nabadda guud ahaan waxa cadow u ah nabadda qofeed waxa cadow u ah dayac naftaada ka yimaada ayaa nabadda qofeed cadow u ah in laga qaado waxa aad leedahay in lagu hadido inaad fulay noqoto baqda inaad sheegan kari weydo waxa aad qabto codkaagu inuu soo bixi waayo
inaad waajibkaaga ka soo bixi weydo adiga dayac qofeed baa keena oonu baraarugsanayn nabadda bulsheedna waxa keena ama dhibaato ku haya waxa la yidhaahdo damac cid kale damaaciyeysa cid kale wax ka qaadaysa cid kale doonaysa inay sadbursi samayso adigu cid kale isu bahaysanaysa damac baa burburiya nabadda bulsheed haddii damac soo galo oo damacaasi uu xakame waayo nabadda bulsheed uu burburinaya kooxaha samaysmaya dadka u gala jidadka habeenkii wax ka qaada dad baa kale hanti kale riixanaya adigu damac baa imanaya nabadda qarameedna eex baa burburisa hadday cadaalad darro timaado waa lagu kala soconaya halkaa rag cadaalad waayaa sidii cawsha kale yaac baa layidhi ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa ka yidhi ina allaha ya'murukum an tu'addina al-amaanaata ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl haddii cidda mas-uuliyadda qarameed haysaa ay cadaalad darro ku dhaqanto cadaalad darradoo 10 nooc u kala kacda waxaa gacanta lagu hayaa wuu burburaya ta bulsheedna haddii damac ka dhex kaco oo damacaasi uu ficil la yimaado bulshadaasi way burburaysaa ta qofeedna hadday dayac kaa yimaado oo aanad waxba dhacsan karin naf ahaan adiguna qof toosan ahayn nabadaadu way burburaysaa taasaa sababaysa wacyigelintii iminka ay inantii u dambeysay halkan ka sheekaynaysay ee ay lahayd indhaha hore u fur dad baa jira kugu duulaanay markaa taasaaba caddayno ah mar hadday sidaas tahay maxaa haddaba si loo badbaado qof ahaan iyo bulsho ahaan iyo qaran ahaan dawo u ah in la sii hayo waxa dawo u ah lambar 1 in aynu risaaladii ilaahay dee fahanno nolosha waxa ilaaliya waa habfikirka waa waxa ugu xooga weyn leh ee dunida yaalla ee hubka maaha waayo hubka gacan iyo fikir baa rida fikir baa sameeyay maskax farsama lagu keenay waa sababta diimaha samaawiga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka kooxo uga dhigay oo fariiqu fi janna fariiqu fi saciid oo xisbullah iyo xisbul islaam ay u jiraan fikirkaasi ficil baa ka dhalanaya inuu xoreeyo markaa maanta jimcay ahayd diin ahaan waxaa lanagu wacyigeliyaa inaanu suuratul kahf akhrino innahum fityatun aamanuu birabbihim wasidnaahum hudaa ayaa ku jira 7 sheekaa ku jira oo dal soo gelaya qof soo gelaya qoys soo gelaya xorriyad soo gelaya wax iska celin soo gelaya nabad soo gelaya waxaasoo dhan soo gelaya waa jimcaha qura inta kalena maxaad u malaynaysaa marka hadduu qofku fikir ahaan bad qabo oo qofkeenu fikir ahaan bad qabno oo dayaca fikireed iyo maskaxeed aynu iska rawno oo dabeetana aad noqoto qof nool hal yastawiya aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun kamasali alxayi walmeyt baa daliili inaad noosha inaad dhiman tahay haddii markaa shakhsiyaadku sidan u noolaadaan bulsho nool bay noqonaynaa oo aanay dhexdooda ka dilaacin dad damac leh oo wax kala qaada qofkuna wuxuu noqonayaa qof xooggan oo fikirkiisa sheegan kara oo fikirkiisa wax ku xallin kara iyo weedhihiisa markay bulshadu iyaduna sidaa uga badbaado damaca ee ay wax fahantana cadaalad darro kuma dhici doonto qofka eexda wada ama qofka ku durdurinaya wax joog baa lagu odhanayaa waayo bulshada bad qabto caafimaad qabta caafimaad qabka bulshadana waxa lagu qiimeeyaa iyo qofeedba hadba aragtida iyo aqoonta ay bulshadaasi aaminsan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa intaasoo jeer buu ku soo celceliyey afalaa tacqiluun afalaa tubsiruun afalaa tadakkaruun marka ayaa lala hadlayaa dadka fanduruu fi lardi famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risq yaa lala hadlayaa dee marka waxyaabihii dhacdooyinka dhacaya ee aynu doonayno inaynu xakamayno ku qoran buugaagta ugu badan ee dunida la iibsadaa waa buugaagta qofka la hadla buugaagta stresska ka sheekeeya buugaagta ka sheekeeya guusha buugaagta ka sheekeeya qofku inuu tamar iskeliyo buugaagta badan ee ka sheekeeya wacyigelinta bal idinku u fiirsada buugaagta ugu badan ee la iibsaday ee dunida waa buugaagta wacyigelinta markay buugaagta wacyigelinta tahay waxaad dareemaysaa dadku naf ahaan inay u baahan yihiin inay xoroobaan in wax loo sheego waad guulaysan kartaa 7 qodob samee waad farxi kartaa carada ka badbaad maalqabeen noqo sidan noqo laakiin buugaagta cilmiga kuwaasa ka socod badan buugaagta sheekafaneed ay buugaagta dhiirigelinta ayaa ka socod badan marka
إلهي سبحانه وتعالى أنا هل كم بينه وكيديو يستجعين الله هذي هل كودك وين ما أنت نبض وح إلى عليه وبرارب نبض وح إلى عليه وأقون نبض وح إلى عليه وفهم لبا طبعا كل أبوه ما أنت لسه دقي بندقن أنت طبعا كل لسه يبصد وح معنا سمين إسا إن إذا كفرين تسوقادي تطبع كل أبوه قد إذا كأخرستين لبا طبعا كم بوجا لكينا إن تظهر لك كانوا سو أخرستين معناه إذا وح شيء إسا إن عافيمات كبرشدو ومالين بمالين تقدم بيس سيادي وسيكرديو مركز توقف وحقريو وحفهمنا وحاو كسر دوانة يا إنه عضاضي يحرية يكلسوني يكرامة قفات سياسيدو لكن سؤال بعد بطل الله محوقف وآخرية هذا ما أنت هنا تخريده ده مشيكوين هذا ما أنت هنا تخريده مديريقلين بعضو ما أنت هنا تخريده ما بهالقلين بعضو ما أنت هنا تخريده ما فلسفة بعضو ما أنت هنا تخريده ما عاد آخرية إسا مركز كوبات هدي عاد مسلم تاي لأن بدل بدري ده كوه النور هذا مسلم تاي وعدو بان تاي مركز ورا عقيدة مسلم كا قرآن الله لقى قرآن هذا هيسيد أو أيوه الريان اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أنت أسوي لا إنه وش هاي كتابك واحد كسيد دنبيه أوردنا كويه الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أنت عدد فهمتين عدوكنا وحبات ألين كريسا مركز أنت أخرده محا نولش هذه كابا يهدوا تدخل أيوة استان هالبور كونوا تدك مسلمين تامسيد إنه فهمتين إنه وهي وعي كانوا لما تصنع كورال كانوا قارسيسنين وعينه أمسنيني واحد استوفر سمو الدنيا صوب حين يقال سميسو لكن ما إننا أمسنينا ورشة سميسة كرنو مسكح لنا ندقاشي كرنو إنك وشتكوا في الله كرنو كمردنا يقلب كان إنك ما إنه سميسة كرنو فرسمدو هنا يتاي واحد يسوق يقول لتجابيي أقول لك لا ديكتو وحنا الله بصي ضرو قفك السميي كم حدنا هل كان مركا أي مرة سنة مركا أي نهار مركا إنه waxa akhriyaysan marka ka digtoonaada bariyahan waxa soo batay dad badan oo dhalinyaro oo wax bartay oo kuwana ay maxadada ka soo baxeen kuwana goobaha kale aqoonta ka soo baxeen qaar dugsiyada kale ka soo baxeen tabatana waxbarashadii dibadda ay aadeen ee dalalka ugu badan ee nagu xeeran ee loo tago scholarship-ka iyo iskood aqoonta loogu la isaga bixiyo iyo kuwa aan dalkaba ka bixin oo magaalooyinkeena la joogay inta ay akhriyaan dad ajnabi oo badanka kuwa luqadaha qalaad ku qoran oo isla markaana aan muslim ahayn inay dabatana su'aalo badan aqeedadii galiyeen noloshii galiyeen dabatana ayna la murmeen dabatana wixii ay dood noqotay dabatana noloshii aqeedadii iyo isfahankeedii ay ku soo ururtay kabashada cilmiga gaaban waa lagu kadeedmaa dabatana qofkiiba isagoo 4 sanadood waxbarasho loo diray uu soo noqdo qofkii isagoo la murmaya waalidiintiisii macallimiintiisii ardayda isku jiilka ahaayeen dadkiiba isagoo la murmaya taasi aqoon maaha aqoontaasi ma hadee wax akhrisna maaha horumarna maaha aqoontu maaha inta buug akhrinaa cid kale ku dayato inuu qof ka dhex baxana maaha laakiin adigoo kitaabkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala aaminsan adigoo akhriyay adigoo fahmay inaad aqoonta kale ku darto dadna si asluub leh aad u gudbiso Ilaahayna inoogu yiri wajadilhum billati hiya ahsan uladood sida ugu wanaagsan fayda alladhi baynaka wa baynahu al'adawa ka'annahu waliyyun hamim inuu qofka ugu jeceshahay oo kala saad ula hadlayso uu yahay waayo qofka waxa doonaysaa inaad badbaadisid inaad wax fiican u sheegtid inaad wax ka dhaadhicisid dadka aqoonta kala duwan bartana waxaan ku wacyi gelinaynaa oo runtii aan arko inay goobaha aqoonta aynu ka baranaa ay ku guul daraysteen jaamacadaha halkan ku yaaliyo kuwa kale iyo kuwa dalka jooga oo dhani inay bandhigyada noocan qabtaan way ku guul daraysteen waxay ku guul daraysteen in buugaag iyo quraan waxay ku guul daraysteen jaamacadda in wax laga faa'iido waxay ku guul daraysteen in hal abuur jaamacadda uu ka baxo waxay ku guul daraysteen dadkii ka baxay farsamooyinka sameeyay inay dadka model u noqon karaan waxay ku guul daraysteen inay cilmi baadhis sameeyaan jiilkan cusub isku bedeli karo oo qofka ganacsi wada imka Cabdirashiid ganacsi buu ka hadlayay laakiin buu qurux badan oo ka hadlaya 12 fursadood oo ganacsi oo dalkeena ka banaan oo milyaneer lagu noqon karo iska daayay qof 100 kun ka faa'iidi karo milyan bayaanan gaarinin de ma hayno sidaynu markaa ku dhiiri gelin kareenaa kuwa halkan soo fadhiya aynu leenahay ganacsi abuur de fikradii kan waaya ganacsi abuur adiga goobtii aqoontaada wax farsameynaya ah idinka aqoonyahanadii ah idinka bangiyadii ah bal investment kana wax lagu sameyn karo la maal gelin kara kana
تابدل كذا واحد نهبنا حتى أنا نقول ما أنت فكر لا يماتو أما أدوك فكر لا تمادي أو تبتنا أدفرتيد مت كال عقبة إنه كاكو بكرين أيو أو كأكثر أيو أو هيل قليل أيو تابدل كذا واحد نوجناي هدي حروم بنقي أما حروم كنعسي أنت بروبوسال قرتيد مشروع فرسمدي سقرتيد هذا ترى إيميل قليل ودو قد بيسيد أنا يقول لك يا بيني كحدان عد كدفاع دو كعلي سناني شريم دباتوي كمر كائن والله نور هاي وحرفنا وعرورتنا كوعد إنه يقول لك على بدي يشيل كهالك جوجا كفكر في عيهين كناس عتي وعيهين أو ينو شيء جيان أو تطبقون ما أنت أور يرو برعد حديث كوي يلا بوك أيدك كعنت هذا قلين أين أودين إن الشام عادي كعنت هذا ذلك سيدا وقليسو بدي كنوع عاسة كل ديرته عدنا أنا ما القلين تبى تناي قبطان taasi marka waa dhaliil joogta taasi iftiin kale inuu tusaysayo in jiilkan soo kacaya dhalinyarada ay ka garasho fiican yihiin dadka gacmaha wax ku haya annagana waa tan ugu qasbaysa inaanu damaanad qaadno inaanu kirooyinka guryaha ku jiraan ka bixino bandhigyada ay qabanayaan lacag ka bixino inaanu soo dhaweeyno inaanu u dhaganuglaano telefoonka inaanu ka qabanno inaanu caawino haday wax daabacayaan wax ka siino waxaad ku dhiirigelinayaa fikradaha badan ee noocaas ah jira qaabka ay ula noolahay idinka iyo inta jaamacadooda ay maqli doonto inaan gaarsiiyo in kaalintiina subanaan tahay oo dadkan idin baahan yihiin oo ay idinka tusaale fiican idinkaga doonayaan oo haddii maanta dawladda hoose burco ay tiraahdo $50,000 baan dhalinyarada burco ku maalgelinayaa inaan heli karo marjac ay sameeyeen jaamacaduhu oo loo qaybin karo fikrado la maalgelin karo oo macno leh si aanu $50,000 u qasaaroobin dhalinyaraduna u qasaaroobin oo aanay u hanjabin laakiin lagu tijaabiyo wax la hubo oo ka soconaya marka waxaad ku wacyigelinayaa walaalayaal inaanu dadka hor qaadno inaanu dadka hor kacno inaanu dhalinyaro heelan inaanu jiil nadiif hayno in dad diyaar ah aynu hayno in fursadaha ku beegadii jaamacadaha iyo shirkadaha iyo bangiyada aad ka soo baxdaan aan maalinba dad leedin bariin dalkeenuna wuu horumaraya wuxuu gaari doonaa heer uu xeerar soo saaro hal abuurka qofka damaanad qaada wuxuu gaari doonaa heer aad dacweyn doonto shirkad qaadatay muxuu ahaa fikradaadii waxaanu gaari doonaa heer la isku bari karo yaa fikradda maalgelinaya waxaanu gaari doonaa heer aad lacag baanka ka amahan kartid waxaan ku dhiirigelinayaa hankiinu inaanu jabin inaad quruxda inaad sii wadaan dareenka aad qabtaan inaad soo kordhisaan annaguna dawlad ahaan sida imika aanu idin caawinay aanu ugu dhiiranaynay inaan runta ugu sheegno kuwa fursadaha gacanta u haya isla markaana intii awoodayada ereygaanu sheegayna inaan runta uga sheegno gacanta waxaanu ka haynana aanu ka bixin karayno waanu taagnaanaynaa waxa jira sanduuq dhalinyarada oo qaranka oo la sameeyay oo la yiraahdo sanduuqa horumarinta dhalinyarada oo ogtiina wax waliba caasimadda marka hore ku xidhan yihiin gobolada wali ma soo gaarin dawlad ahaan waxa noo socdo wada hadal war baanu ka doonaynaa lacag baa ku jirta goboladu siday uga faa'iideysanayaan waanu ka dignay in goboladu si siman uga faa'iideystaan in si dhammaystiran loo qabto tartanka inay kuwa noocan oo kala ay doonayeen inay wax qabsadaan ay fursad ka helaan si qurux badan baa loo shaaciyay madaxweynaha qaranka furay madaxtooyada lagu shaaciyay wixii ka dambeeya warkaanu ka soo helay wadin wadaagayna waayo annaga dadka ka wakiila annaga inta inaanu u sheegno hadday wuxuu qaldayna runta ka sheegno hadday saxayina aanu diin soo qaadno idinkana codkiina halka jooga ayna gobollo kale uga yeedhan maxamed xabse markuu fikradii weydiiyay waxaan ku uri jaamacadaheena iyo qoraayadeena iyo mas'uuliyiinteena ayaa isku filan halkan baynu doonaynaa inaan dadka uga sheegno inaan wax badan ku qabsanay oo la inaga caawin oo aan hubo inaanu jirin gobol intuu sidaas sameeyay 3 cisho 12,000 oo buug socodsiiyay oo dabeetana qabsaday oo dhalinyaro inta leegi kaligood maamulayaan inaysan dhicin oo aday ogtiin oo dhamaantiin inagoo markaan wasiirna u baahnayn mid kaga weyna u baahnayn nin meel kale ka saadlana u baahnayn inaga isku filan waxaana dhawaan dhici doonta insha Allah inaanu buugtan halkan ku taabacno inagu noqono kuwa la soo dalbado ee maydi kala soo qayb kala la yiraahdo laakiin dad aynu dhaanayn inaan xafladaha ku qurxisanin aadiya baa mar labaad ku celinaya mar saddexaad waxa aynu qabsanay cid qabsatayna ma jirto ka dambe ku xigay kalka shanaadna inuu ka qurux badnaadaan rajeynaya waan idin mahad celinaynaa aad baa idinku mahad celinaynaa library-gii burca su'aal badan baa laga dhaliyaa dad waxba ku darsan baa nagu maaga dad baa ka hadla library-gii burca caqabada uu taagan yahay waxa weeye caqabad dhisme ciidda meesha joogta 3 mitir ku dhawaad baa la qoday dhismaha aynu doonayno ciidda inaynu saarno iyo ciidda iska xijinteedii baa isku suurtagali waayay
6 bilood marba ciidda mashiinka in lagu tijaabiyo inay qaadi karto baa la tijaabinayay iminka wuu soo dhamaaday wuu soo dhamaaday farsamadeedii baa bilaabmaysa de xaaladaha marba ay ku jiraan qaranku ku jiraan saameyntu ay de ku xidhan tahay marka iminka uu inoo bilaabmaya wax kasta waa la soo dhameeyay markastoo ciidaasi ay dhib cusub la timaadana lacag badan baa soo kordhaysa si inta loo soo buuxiyo de qofka ka hadlaya lacagta muu noo keenin noomana ballan qaadayo annaga marba nagu kordhaysa lacagtaas marba annaga nagu kordhaysa waa lagu celinaya design-kii baa xataa su'aal la iska weydiinaya dabeetana waxay noqotay in awooddu u baahnaa awood labadeeda awooddii lagu design gareeyay iyo qorshihii loo qooday qorshe labadii inuu ka dhasho taasi waxay nagu sababtay inay muddadu dheeraato laakiin dee cidina ma cuni karto cidna dee ma cunto innaga lafteennuna inay su'aalo karaama la isweydiinno xaq baa u leediin inaad ka hadashaan inaad ka cabataan inaad ka doodaan laakiin dee wajaadilhum biladii iyo axsan inaynaan dhaafin aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu